Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Halkani waxaan idinkugu soo gudbinaa alaaba waxyaabaha markaas aan u aragno inay idin xiiso gelinayaan. Warbixintan gaarka waxaan ku eegi doonaa 10 shirkadood ee ugu faa'iidada badan dunida. Waxaan idinkugu soo gudbinaynaa halkii daqiiqaba maxaad is leedahay way sameyn karaan oo dhaqaalaha shirkadahaasi. Muuqan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ay fadlan marka hore noo saar subscribe-ka channel-keena. haddii aan lambarka koowaad kaga bilowno shirkadda Amazon oo suuq ganacsi ah waxay samaysaa halkii daqiiqaba 854,938 labo waxa kaalinta labaad ku jirta shirkadda Apple waa shirkad soo saarta agabka sida mobilada iyo kombiyuutarada waxay la midka ah waxay halkii daqiiqaba soo gashay lacag dhan 643,519 lambar 3 shirkadda Google halkii daqiiqaba waxa soo xarooto 3,315 lambar 4 shirkadda Microsoft waxa halkii daqiiqaba soo xarooto dakhli dhan 349,537 lambar 5 shirkadda Facebook waxa halkii daqiiqaba soo gasho lacag dhan 223,843 lambar 6 shirkadda Disney waa shirkad madadaalo ah waxaana halkii daqiiqaba soo gasho 142,978 lambar 7 Tesla waa shirkad soo saarta baabuurta korontada ku shaqeysa waxaana halkii daqiiqo soo gasho lacag dhan 106,173 lambar 8 shirkadda Nike waa shirkad soo saarto dharka iyo kabaha ciyaaraha waxaana halkii daqiiqaba soo gashay lacag dhan 94,522 shirkadda Coca-Cola waa shirkadda cabitaanada soo saarto qaar ka mid ah waxaana halkii daqiiqo soo xarooto dakhli dhan 77,160 lambar 10 oo lambarka ugu dambeeya ah shirkaddaani waxa lagu magacaabaa Starbucks waana shirkad qiyaanayda iibiyaha feega ah waxaana halkii daqiiqaba soo gashay lacag dhan 62,500 haddaba maxaad ku qiyaasi lahayd dhaqaalaha la eg intaas halkii daqiiqo ku soo galayaan bishii way sameyn karaan muuqaaladan iyo kuwa kale ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa ee fadlan nala socdo oo channel-keena ku soo biiro